lamada May oo geeka khamiise ka beeganayti iyo la filaa intii magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal uu saga qabsooma sharan dhaxaya madaxda dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ku jiranga haabahato shirkaasi reedan dhiyowka kooye madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo 4 maalmood ku hor shirkaas ilaami way bana wararkun helahayn iyo sheegahayana anti sababo uu shirkaasan baaqad iyo qayb ku eta anti madaxda shirkaas qayb gal lahayd iyo wali indeerna magaalada Garoowe shalay magaalada Garoowe baseeday wafuud hordhace oo ku shal dareer xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way banasaasoo kala dareere wada tashiyo sameeyahayaan madaxda dalka oo ka eedan qorsho iyo shirkadda seedayanga madaxda maamul goboleedyada iyo dhinisho wiileensana magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal haabahaatoonka dambeyntii madaxda Korea dalka iyo haan dowlad goboleedyada iyo la filahay magaalada Garoowe iyo seedan maalinta Sabtida ee dareerta beela caalamka iyo cadaadisa ka saarahayta madaxdan ka sareyta dalka anti shirkaas ku qayb galan xilliga jarta anti dhowr mar madaxweynaha Soomaaliya farmaajo shir wada tashi oo isku weeri madaxda dowlad goboleedyada iyo ku baaqadeen shirkan la filahay intuu si dhawaan ka qabso magaalada Garoowe ee caasimadda rasmiga Puntland iyo way ballanku ka hadalahayeen xaliyowka khilaafka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada sidii sadhabelan ku wada shaqeyn lahaayeen Shukri Ismail Ahmed JTV Baydhaba